jaamac Cadaawe Maxamuud waa wiil naafo oo ku xanuunsan magaalada Muqdisho kana soo jeeda qoys danyar ah isla markaana awoodin inuu tago xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha ururka habeenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab oo jaamac warbaahinta u soo bandhigtay ayaa sheegtay in maamulka gobolka Banaadir uu soo seexday warqad uu ku tagi karo jaamac isbitaalada magaalada Muqdisho waxaana dadka Soomaaliyeed ugu baaqday in la soo caabiyo jaamac Cadaawe Maxamuud ay raadeen jaamac wuxuu ku dhashay degmada Boondheere wuxuu ku nool yahay degmada Boondheere wuxuu ka mid ahaa dadka mar walba yimaada xarunta gobolka Banaadir waan arki jiray waan saacidi jiray marka jaamac qofka markuu xanuun hayo waxa wanaagsan inuu la wadaago qofka damiirka leh haduuna sheegin waa dhibaato jaamac waa u jeedaan nabarka ku yaalo waligay ma arkin mar walbana ama way soo raadi jiray ama way soo wici jiray maalin dhaweeyto waxaan arkay jaamac oo maaragtay duqsi badan uu ku deganayo waan ku soo leexdo waxaan dhahay jaamac maxaa kugu dhacay maamo waxaan u maleynaa inuu masquul iyo wax u baahan yahay jaamac wuxuu tusan nabar aan ka maleysanaynin ilaahay waxaan ka baryaa marka hore jaamac inuu caafiyo isla markii jaamac aniga waxaan sameeyay waxaan u tagay gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaaladan u tagay waxaan uga soo saxiixay warqad jaamac wuxuu tagay isbitaalka Digfeer markuu tagay dhaqaale ma haysto jaamac wax uu maaragtay iskaga bixiyo ma haysto wuxuu ka dhashay qoys danyar ah jaamac wuxuu ahaa mid asaga magaalada ugu jira oo wax u raadiya naftiisana wax u goobo jaamac marka duqsigan arkay kadib waxaan dareemayay cidiyaha inay cad yihiin waxaan dareemayay bishinta iyo maaragtay inuu asagu indhaha dhiig la'aan u yahay waxaan ku rahooy maxaa kugu dhacay wuxuu ii sheegay dhowr bilood inuu xanuunsanaa qof walba oo muslim ah oo Soomaali oo muwaadin waxa ku waajib ah inaan hoos u fiirino waxa meesha yaallo durbaantunka doorashada qof walba kursiga uu raadinayo shubitaanka $30,000 oo madaxweynenimada lacagta aad bixinaysaan waxa ka wanaagsan inaad booqatid qoys danyara agoona hooyo baahan ilaahay ha caafiyo jaamac waxaan rabnaa inaan dhigno isbitaalka waad u jeedaan warqadii duqa magaalada uu soo saxiixay gudoomiyaha gobolkana waxaan uga mahad celinayaa raxmadda iyo naxariista uu maaragtay mar walba u leeyahay waxaan rajaynayaa hadda daqiiqada kadib inaan jaamac qaado isbitaalka Digfeer aan geeyo kadibna operation uu galo jaamac waxa u rajaynayaa asoo caafimaad qabo inuu ku soo laabto xaruntan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryayaa jaamac waa dhalinyaro waa ilmo yar wuxuu u baahan yahay mustaqbal wuxuu u baahan yahay nolol wuxuu u baahan yahay xanaano wuxuu u baahan yahay daryeel asaga iyo kuwa badan oo la midaba dabcan ujeedada maxay tahay marka ujeedada aan halkan u taagana waxay tahay inaan bahda saxaafadda aan u mahad celiyo marka hore oo mar walbaba markaan dareenka la wadaago iiga jawaabo ayagoo aan shuruud igu xireynin inaan madaxda agaasimayaasha milkiilayaasha iyo shaqaalaha TV-yada soo Muqdisho ka howlgala aan dhaw waa mahadsantihiin dhanka kale jaamac Cadaawe Maxamuud ayaa isna ka hadlay xanuunkiisa waxaan codsanayaa dadka musharaxiinta kale dawladda kale hadda gudoomiyaha maamada ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa iga caawisay iyadoo markii hore laamiyada kale hadii ay u aragto gobolka Banaadir ay ugu caawi jirtay xaafadda biilkooda wax kasta dhaqaalaha xaq oo xaafadda maalmaha kamid 6 bilood ayaa saarnaa maalmaha kamid ah soo kaagay maamadii arkay gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho ee warqad isbitaal Digfeer yaaga dhameysay isbitaal Digfeer maalinka tagay waxa la yiri lacag adiga habeenkii waxa lagu jeefanaa $50 habeenkii iyo maalin lagu jeefanaa markii dhaqaalihii waa awoodi waayay waxa sida maamada u tagbo waxa sida meelaha ugu gasho marka gobolka Banaadir adiga maadanaya ilaa qaraasiyo maamadana ilaa qaraasiyo wixii oo awood Soomaali muslimiinta dhan waxa awoodin inuu tababarayeen xilli waxa lagu jira waa maasantii Ibrahim Ali Nuur wararka STN magaalada Muqdisho